wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliyaan madaxda gobolka Togdheer iyo golaha deegaanka ee degmada Burco oo horkacayo duqa degmada Burco ayaa kormeer ku tagay xiriirigtii hore oo la doonayo in loo raro xiriirigta cusub oo ka muuqaal iyo tayo wanaagsan tii hore xiriirigtii hore ayaa waxa dhaaftay oo dhinac walba u gaadhay magaalada taasi oo sababtay in dadkii ka agdhowaa ay noqdaan kuwa ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaadhay cudurkii shuban biyoodka ama dadba ugu geeriyoodaan nadaafad xumada xiriirigtu sababtay muuqaalka xiriirigta cusub oo ka baxsan magaalada ayaa waxa aad ula dhacay wasiirka iyo wafdiga la socday geesta kalena waxa ay kormeer ku tageen warshad qaboojinaysa hilibka marka la qalo oo laga sameeyay magaalada Burco duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa tilmaamay in kormeerkani uu ku saabsanaa kurgalida iyo indhaynta qorshaha lagu rarayo xiriirigta cusub casriga sidii loogu rar lahaa meeshaas waa meel ingiriiskiiba ayaa dhisay muddo badan bay jirtay waxa lagu talagalay 10 neef iyo wax la mid ah maantana 500 600 700 neef baa lagu qalay waa dhibteedana waa baatay marka xataa aan waxaan isla waafaqsanahay meesha emergency case in laga guuro oo loo guuro ta cusub ee la dhisay maadaama dhibaato badan ay keensatay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa sheegay in kulankii uu saaka la qaatay xafiiskiisa hay'adaha gobolka uu daaranaa u diyaar garowga oo la ballaaran oo lagu dabar jarayo cudurka shuban biyoodka oo maalmaha soo socda ay ka bilaabi doonaan gobolka waxa iyadana inoo wehelinayay shirkii ay maanta arkayseen ee isugu yimaadeen hay'adihii maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa oo inagala qayb qaadanaya runtii waxaynu gelaynaa xilli baa la gelayaa Burco waxaynu gelaynaa rabadaantii baa dhamaanaysa haddii Ilaahay ka dhigo iidii baa bilaabaysa hawshayna haysatana waa ogtiin caafimaad ee gobolka ka jirta qaabkii looga hortagi lahaa ee loo midaysnaan lahaa hadday tahay wacyigelintii hadday tahay biyaha sidii loo bahalayn daweyn lahaa hadday tahay buufintii inay barbar socoto hadday tahay xashiishkii magaalada sidii looga xaqilaa oo aanu goosanay 15 cisho in olole lagu qaado Togdheer wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkiisan uu ku soo gaadhay magaalada xarumaha caafimaadka marka arintaas markii la baaray waxa la ogaaday meelaha ugu waaweyn ee cudurkaas saldhigga u ah ee uu ka soo baxayo inay ka mid yihiin meesha ay lagu ilaaho gowraca ama xerada xoolaha lagu gowraco xoolaha lagu qalo inuu saldhig u tahay inuu saldhig u noqday meelaha sabab oo ah ee uu ka soo baxayo cudurkaas arintaas markaa waxay u baahatay in si degdeg ah wax looga qabto waxa jira xeradii hore meel waxay ku taala xulaha lagu gowraco jiray toga ama magaalada dhaxmara u dhow wixii uus ama dhiig ama haatan xoolaha ka baxayay qashinkoodiina uu ku dhaco meeshaas waxay noqotay meel uu aad uga soo baxay iyada qudhadkeedii muddo badan bay jirtay ilaa ingiriiskii bay jirtay meel dayactir u baahan oo in wax weyn laga qabto oo dib loo casriyeeyo loo dhiso ayay noqotay sidaa daraadeed maadaama aanay maanta diyaar u ahayn laguna sii wadi karin sida tan waxa laga maarmi waayay in meel kale loo helo waxa jirta haddaba meel cusub oo muddo dhowr sanadoodaba iminka jirtay oo arintaa loogu talagalay meeshaas sidii loogu furi lahaa oo loogu wareejin lahaa dadkii halkaa ka ganacsan jiray oo magaalada nadaafadeeda iyo caafimaadkeedii mataqaanaa loo horumarin lahaa ayaa ah sababta ugu weyn ee aan u nimi kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu ka dhawaajiyay in ka xukuumad ahaan ay la dagaalami doonaan kaamanka iyo deegaamaynta cusub ee laga wado dalka waxaana ugu baaqay bulshada samaysanaysa inay ku biiraan tulooyinkii hore u jiray waxa kaloo iyana aan u yimi waqti abaartii dabada dheeraydana soo martay dhibaatada badan ee maxaa ahto waxyaalo badan ay ka dhasheen waxa ka dhashay magaalooyin cusub iyo kaamam iyo deegaamayn cusub oo dalkii dhibaato weyn ku haysta arintaas sidii wax looga qaban lahaa oo hay'aduhu iyo macaawinooyinka la geynaya dib loogu habayn lahaa dadka waxay nala noqotay inaan kaamamka loo adkaysan karin inay noqdeen xarumo
maxay ahayto dadka ay ku urureen xalaaliya wixii crime ama dembi badan hadday tahay xashishado hadday tahay khamri hadday tahay maxay ahayto dhul wax lagu xado haddii meelo wax lagu khayaameeyo meelo magaalooyin cusub oo deegaankii burburiyey oo mataqaanaa wax la goynayay oo diyo la jariyay cabsaaq faarax cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland burco